markaad aragto qof hadal wanaagsan kugu leh doonaya inuu wax un ka geysto noloshaadu inay hagaagto oo ra'yi kula wadaagaya talo kula wadaagaya oo kule waxaan jeclaan lahaa wax noocaas inaad samayso shayga aad saa u samaynayso inaad sidan kale u samayso waxbarashadaadu waa yaro hooseysaa inaad waxa qabato noloshaada guud doonaya inuu kaaga waramo oo wax un kugu darsado yacni korkaa guud markaad ka eegto waxaad u qaadanaysaa waana sida asalka hadde waxaad u qaadanaysaa qofkan inuu doonayo wax kugu hagaagaan inuu doonayo in arrimaha soo kaa toosaan inuu doonayo inaad wanaagsanaato laakiin mar walba sidaa ma aha inaanay sidaa ahayn oo dad badan oo wax wanaagsan inugu odhanaya inay hadalkaa wanaagsan ee ayna leeyihiin ay inagu talo wanaagsan moodana laakiin ay talo xun inay tahay oo cid walba aynaan rumaysan waxayna tusinaya isla quraanka kariimka ilaahay subxaanahu wa tacaala niman baa jira munaafiqiin la dhaho dabcan de ragna way lahaayeen laakiin niman baa ugu badnaa cidda warkooda lahayo waxa dhacay masaajid bay dhiseen waa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa isla magaaladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam masaajid bay dhiseen masaajidka ilaahay wuxuu bixiyey masjid ad-diraar masaajidkii dhibaatada yacni muslimiinta lagu kala geynayey oo lagu dhibayey oo loogu tashanayey in arrintooda lagu kala daadiyo hadda nabigii la joogaan masaajidkay ugu imanayaan safka horey la joogaan haddii ilaahay badankeeda leeyahay casharkay ka dhiganayaan wacdiga iyo waxaabuu nabigu samaynaya calayhi salaatu wasalaam yani waxaas oo dhan waxa laga yaaba marka qaar dadka inay kaga horreeyaan waxaa laga yaaba saxaabo waaweyn oo fadli badan inay u yeedhaan hebelow habakaro waxaweeya meel damba tusaalahaan arrin ku dhammaynayo qof la talinaya ama wax unu khayra ka shaqaynaya nabigii baa doonaya inuu hadlee soo kac ka hor nimankii noocaa ahaa masaajid bay dhiseen masaajidka waxay u dhiseen in muslimiinta ku kala geeyaan sayn tilmaanay meeshan doonana waxa weeyaan waxay yidhahdeen ilaahay baa subxaana wa tacaala uga sheekeynaya nebiga wuxuu ku yidhi ilaahay baa leh oo uga sheekeynaya nebiga uga sheekeynaya waxyi baa ku soo degay wuxuu u sheegayaa waxyigani masjidkani inaanu ahayn masjid loogu talagalay danta muslimiinta waa quraan waxay soo degaya weeyaan mase waxaa ka mid ah wala yaxlifunna in aradnaa ila alxusna maxamedow way ku dhaaranayaan ila noogu tukay ku dhahan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabahan maqalnay iminka xadhiga ka jar dee wax hadda cusub maaha oo iminka bilowday maaha ilaa weligii buu jiray noogu tuka rasuulkii allah si masaajidku masaajid barakaysan u noqdo salaada ugu horreysa noogu tuko dabeetana waxyi baaba soo degay intaanay uga imanba waxa la leeyahay laa taqum fiihi abadan weligaa allaha masjidka ha tegin waa masaajid loo dhisay in muslimiinta lagu kala kaxeeyo hala burburiye waa la burburiyey meeshan doonaya waxa weeyaan wala yaxlifunna in aradnaa ila alxusna maxamedow waxay ku dhaaranayaan professor hadda waa dhaar wala yaxlifunna in aradnaa ila alxusna yani maa aradnaa ila alxusna maanaan doonaynin kamaanaan rabin masaajidka markaan dhisanay wanaag iyo khayr iyo arrimo fiican mooyaane eekata masaajidka ay dhiseen ilaahay qalbigoodu ogaa wuxuu leeyahay waxay u dhiseen in muslimiinta ku kala kaxeeyaan markaasuu haddana isla alla leeyahay waxay ku dhaaran doonaan maxamed kugu dhaaranayaan inaanay uga jeedin wanaag mooyaane wax kale ba nimankaa u kala dhiseen ku kala kaxeeyaan ku kala baabiyaan muslimiinta dad badan baan ka wadaa marka oo meeshii rabne ayaan ka rabna aayadda dad badan ayaa hadalka waxay inoogu dhigayaan si wanaagsan iyagoo doonaya in nolosheennu kala daadato iyagoo ay dhibaso waxbarashada halkan ka marano iyadoo ay dhibaso wacyigeenna iyo korriinkeennu halku marayo iyadoo ay dhibaso jadwalkeenna iyo nolosha inoo qaabaysan sida inoo tahay cid walba oo hadal wanaagsan ku tiraahdaa ha u qaadan inuu doonayo in wax ku hagaagaan talaa korkaa markaad ka eegta ka qurux badan markaad si fiican uga sii fikirtana gudaha ka ah dhimasho iyo wax weeyaan ka xumaansho iyo inuu noloshaada lagu baabiinay si guud dadka inagu waxaan u malaynaynaa mala ahaan waxaan u malaynaynaa inay wax wanaagsan wadaan laakiin talo walba ha qaadan cid walbana ha rumaysan wanaagsane waa ilaahay salaam